kulantii waxaan asxaabe meel walbaad joogtaan kuna soo dhawaada kanaalka arrimaha fanka. maanta waxaan soo qaadan doonaa filimka weyn ee The Beckery, kaasoo shalay tiyaatarada India la saaray. sida hore aan kugu sheegnay ama muuqaalkeena hore aan kugu sheegnay in ay lacagihiisa gaarayaan maalintiisa koowaad lacaga uu keenay 22 ilaa 24 karoor lacag u dhexeeyo. waxaana dhacday in sidii aan ku qiyaasnay in filimkan uu noqday 22.50 karoor ayuu keenay maalintiisa koowaad. The Beckery ayaa ganacsigiisa waxaa ka lumay lacago u dhexeeyo 6 ilaa 8 karoor, kuwaas oo filimkan la imaan lahaa haddii aysan rabshado dhici lahayn. qiyaas ahaan maalinta koowaad waxaa lagu qiyaasay in ay gaarayaan lacagihiisa 30 karoor, balse waxaa ka jarantay 7.50 karoor. sida muuqata lacagaha uu keenay filimkan 22.50 karoor markii loo fiiriyo filim sidan u weyn inuu yahay big film. haddana markii dhinaca kale loo fiiriyo ama laga eego caqabadihii uu filimkan maalmahan wajahay, waxay u dhigan tahay in filimkan lacago wanaagsan keenay. hase yeeshee filimkan isbuuca labaad oo sahlan ma arki doono, maadaama filimka Good News uu hogaamiyaha ka yahay Akshay Kumar tiyaatarada la saari doono, waana filim sidoo kale si weyn loo sugayo. sidaas awgeed ganacsiga The Beckery saameyn weyn ayuu ku yeelan doonaa. waxaa macquul ah haddii filimkan Good News sheeko ahaan uu hirgalo misna laga helo inuu khadka ka bixi doono filimka The Beckery. dhinaca kale waxaa la soo saaray liiska 20 filim ee lacagaha ugu badan kasoo xareeyay maalintooda koowaad ee sanadka 2019. The Beckery asagana waxa uu ka galay kaalinta shanaad. liiskan waxa ugu horeeya ama hogaaminaya filimka War. waxa uu keenay maalintiisa koowaad 50.61 karoor, waxa uu helay fasax qaran. filimka labaad waa Baharaad, waxa uu keenay 41.62 karoor, waxa uu helay fasax qaran asna. filimka saddexaad waa Mission Mangal, waxa uu keenay 28.45 karoor, isagana waxa uu helay fasax qaran. filimka afraad waa Saahu, waxa uu keenay 25.82 karoor. filimka shanaad waa The Beckery, asna waxa uu keenay 22.50 karoor. sharciga si xun ama dhibaatada dalka ka jiro ama mudaharaadyada iyo bandowga ayaa sababtay in filimkan lacagihiisa ay aada u hooseeyaan. waxaan la filayay in uu filimkan galayo kaalmaha saddexaad iyo labaad. filimka lixaad waa Kesari. filimkan waxa uu keenay 20.40 karoor, asna waxa uu leeyahay fasax qaran ama fasax qayb ah. filimka toddobaad waa Kabir Singh, 20.22 karoor ayuu keenay. filimka sideedaad waa Gully Boy, asigana waxa uu keenay 19.26 karoor. maalinta jaceylka oo la mid ah maalinta ciidaha ayuu helay filimkan. filimka sagaalaad waa Kalanka, waxa uu keenay 18.45 karoor, isagana waxa uu helay fasax. filimka tobanaad Hospital 4, waxa uu keenay 17.53 karoor. siideyntii Diwaali hore ama Diwaali hore ayaa la sii daayay, waa asna iska dheh fasax qaran. 11aad waxaa ku jira Total Dambal, asna waxa uu keenay 15.91 karoor. 12aad waxaa ku jira Butler House, waxa uu keenay 14.81 karoor, waxa uu helay fasax qaran. filimka 13aad waa Super 30, waxa uu keenay 11.77 karoor. filimka 14aad waa Student of the Year, waxa uu keenay 11.21 karoor. filimka 15aad waa Dream Girl, waxa uu keenay 9.43 karoor. filimka 16aad waa Bala, waxa uu keenay 9.32 karoor. filimka 17aad waa Yuri Striker, asna waxa uu keenay 8.49 karoor. filimka 18aad waa Patti Patni, isagana waxa uu keenay 8.34 karoor. filimka 19aad waa Didi Biyardi, asna waxa uu keenay 8.13 karoor. filimka 20aad waa Luka Jubi, waxa uu keenay 7.70. liiskan 20 filim ee lacagaha ugu badan sanadkan 2019 maalintooda koowaad keeneen waxaa ku jira kuwa heleen fasax qaran iyo kuwa aanan helin fasaxba. waxaan halkan ugu eg macluumaadkan kusoo qaadanay maanta ee ahaa lacagaha uu keenay filimka The Beckery maalintiisa koowaad oo ay ahayd 22.50 karoor. waxaan idinkaga tegaynaa sidaas nabadgelyo.